laba maalmood kadib markii madaxweyne Trump uu aqalka hoose ee Koongareeska Mareykanka uu cod u qaaday xilka xayuubin lagu sameynayo madaxweynaha ayaa afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi waxay sheegtay inaysan u diri doonin aqalka sare ee sanadka qodobada xilka xayuubinta ay ugu sameeyeen madaxweynaha tan iyo inta sanadka uu ku raacayo qawaaniintii ka dambeysay hanaankan ay u soo mareen in madaxweynaha ay cod u qaadaan. Markaan aragno waxa ay qabaan waxaan awoodi doonaa inaan ogaano sida loogu diri karo qoraalada, ayay tiri Pelosi iyadoo kula hadlaysay aqalka Capitol Hill-ka wariyaasha. Golaha sanadka Mareykanka ayaanan ogolaanin inay bilaabaan baaritaano la xiriira madaxweynaha iyo tan iyo inta ay sameynayaan ayaga xataa qudhooda baaritaankaasi. Ayaga keliya ma ahane xisbiga dimuqraadiga ah ee ku badan aqalka hoose ee baarlamaanka dalkan ayaa dhankooda waxa ay sameeyeen xilka xayuubintaasi xalay, waxaana sidoo kaleeto ay u mareen laba qodob oo ay u cuskadeen in xilka ay ka xayuubinayaan madaxweynaha, taasoo sharci ka dhigaysa taariikhiyan Mareykanka marka la fiiriyo 243 sano ee dalkan uu soo jiray inuu noqdo madaxweyne Trump madaxweynihii saddexaad ee xilka cod loogu qaado inuu xafiiska sii joogiyo in kale. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Bakistan ayaa sheegay inay ka howlgeli doonaan in shaqada laga eriyo madaxa saddexdii qaadi ee soo jeediyey in haddii madaxweynihii hore ee dalka Bakistan Pervez Musharraf ee dilka lagu xukumay uu dhinto ka hor inta aan lagu fulin xukunkaasi meydkiisa laga soo laalaadayo barxadda ka soo horjeeda baarlamaanka muddo 3 caanamaala. maxkamad gaar ah ayaa Musharraf ku xukuntay dil kadib markii ay ku heleen dembi ah khiyaano qaran iyo xukunkii militari ee ku soo rogay dalka sanadkii 2017. Musharraf oo 67 jir ah ayaa dalka dibaddiisa isu mustaafuriyey ilaa sanadkii 2016, waxaana iminka lagu daaweeyaa cisbitaal ku yaala magaalada Dubai ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta. maxkamadda ayaa fartay ciidamada ammaanka in ninkaasi gacanta lagu soo dhigo oo xukunka lagu fuliyo. qaar ka mid a saraakiisha sare ee militariga ayaa war-saxaafadeed ay si deg dega u qabteen ku sheegay in dacwadda ku bilaabayaan qaadi Waqar Axmed Seed iyaga oo ku andacoonaya inuu yahay amarka uu bixiyey mid aan loo dulqaadan karin oo ka hor imanaya dastuurka dalka. wasiirka cadaaladda Bakistan Faaruq Nasiim ayaa sheegay in qaadi noocan oo kale ah aanu ku habboonayn inuu xaakim ka noqdo maxkamadaha ku yaala dalka Bakistan, maadaama buu yidhi uu muujiyey inaanu maskaxda ka fayoobayn marka la eego xukunka uu riday. waxaanu intaasi raaciyey in xeerka dalka iyo shareecada islaamku doona aanay ogolayn in qof meydkiisa laga soo laalaadayo meel ay dadku isugu yimaadaan. maalmahan waxaa la hadal hayaa hay-adda IMF iyo Koongareeska dalkan Mareykanka oo ka wada hadlay sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deynta sii kordhaysa ee 5 milyan ku dhow. howlaha deyn cafinta Soomaaliya ayaa qaadan kara muddo dheer sababo la xiriira shuruudaha ku gadaaman iyo weliba wada tashiyada dhinacyada ay khusayso. Cabdiqaadir Bashiir waxa weeyaan madaxa golaha arrimaha dadweynaha Mareykanka, waxa aanu ka mid ahaa aqoon-yahanadii muddada dheer ku soo guda jiray howlaha deynta Soomaaliya looga cafinayo iyo hay-adaha la xiriira. Sahre Cabdi Axmed ayuu uga warramay halka ay wax marayaan xilligan iyo waxa la filan karo ee ku saabsan cafinta deyntaasi. waa mahadsantahay Zahra. talaadadii hadda lasoo dhaafay isbuucan lagu jiray ayaa waxaa aqalka hoose ee Mareykanka laga gudbiyey qaraar la yiraahdo HR 1158 oo maaragtay qoondada loogu talagalay difaaca qaranka wadankan. lacag ahaan waxay ahayd wax maaragtay ilaa iyo adiga ku dhawaad 900 bilyan oo dollar. marka wuxuu ahaa si gunaanada wuxuu ahaa heshiisyo maaliyadeed loogu talagalay waaxda difaaca dalkan, ganacsiga, cadaaladda iyo sayniska, adeegyada maaliyadda iyo dawladda iyo amniga gudaha dalkan Homeland Security-ga. ayaa hore saad ogeyd waxaa soo baxay qoraal ka soo baxay waxaa jiray magaziinka maaragtay arrimaha dibadda aad wax uga qora oo la leeyahay arrintii dhinacsintii Soomaaliya waa la ilaaway. marka waxaa dhacday marka in gadaal looga daray, marka arrintaas dhinacsinta gadaal looga daray oo lagu amray in ay wasaaradda maaliyadda ay ka shaqeyso arrintaas oo loo fasaxay macnaha in Soomaaliya kaga shaqeyso dhinacsintaas.
waa gartay marka dadaalo caalamiya ayaa jiro hadda saad la socotidba hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta iyo World Bankiga iyo hay-ado kaletaba ay ku doonayaan in Soomaaliya deen cafintaasi looga sameeyo muddadii ra-iisul wasaaraha inta markuu imaaday iyo dadka u yimid oo Soomaalida Mareykanka aqoon-yahanadoodii kasoo qayb galaad ka mid ahayd marka sidee waxaan dhab u noqon kartaa dadaalkan muddo intee la-eg ayayna qaadan kartaa in deentan laga cafiyo Soomaaliya Soomaaliya deymaha lagu leeyahay ilaa iyo ku dhawaad 5 bilyan oo maaragtay dollarka ah weeyaan markii la kala qaado waxa ku leh waa 3 group ah ku leh lacagahaas lacagta ugu badan waxa ku leh wadamadan deeqsiga deeqa bixiyaasha maaragtay Europe iyo Mareykanka iyo Ruushka Japanka oo ku wada bohobay wax la yiraahdo Paris Club qolooyinkaas waxay ku leeyihiin 54% waxaa ku xiga maaragtay lacagta badan iyagana waxaa ku leh qolooyinka IMF-ta World Bankiga institutionada adiga ka shaqeynaysa 3% ku leh 33 ku leh iyo waxaa jira wadamo kale oo maaragtay iyaguna aan qayb ka ahayn kuwan laakiin iyana lacag ku leh kamid tahay Imaaraadka iyo Sacuudiga iyagana ku leh 3% ku leh marka dadaaladan oo dinacinta shuruudahooda waxaa kamid ah in wadamada kulli ay cafiyaan hal wadan kaligiis cafiskiisa wax ma taraayo laakiin lacagaha wadan ku leeyahay ayay tahay midda ugu badan ay tahay maaragtay wadankan uu yahay arrintan dinacfintana maaragtay IMF iyo World Bank ay hormuud ka yihiin sida caadiga wuxuu leeyahay laba phase laba waji uu leeyahay ama laba maaragtay level Soomaaliya barnaamijkan maaragtay waxay bilowday adiga 2015 ayaa shaqada la galay inkastoo xiriirku uu maaragtay dib u bilaabay 2013 marka intaas waxa lagu soo jiro waxay ahayd barnaamijyo la yiraahdo SMP Staff Monitoring Program la soo waday oo laga soo bilaabay ilaa heerka 4 la soo gaarsiiyay sanadkan dabayaaqadiisii marka hadda waxa loo balansan yahay waxa la yiraahdo decision point oo ah wajiga hore oo ah kaliya in go'aan laga gaaro Soomaaliya inay dinacintii u qalanto marka kaasa dhacay insha Allah adiga ilaa bisha 4 ugu dambeynta sanadka soo socda marka kadib haddana waxaa bilaabanaya process kale oo dheer oo maaragtay lagu gaarayo completion point wax la yiraahdo marka completion point waxa weeyaan marka wadanka uu gaaro dinacin buuxdo oo aan dib looga laabanayn marka waa wax sanado qaadanayo waay oo dadaal badan u baahan wax maaragtay hadda isku yimaado maaragtay waa la cafiyo madahay wax process dheer qaadanayo waay oo wadan walbana inuu aqbalay u baahan tahay weeyaan cabdiqaadir bashiir oo ah madaxa golaha arrimaha dadweynaha Mareykanka Sahra Cabdi Axmed ayuu u warramayay